السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا غيرت السلسلة دبهانتي waxaan jeclaan lahaa maanta inaan wax yar arrintani aan runtii aan iga yaabisay in ay adinkana ila maaragtay ila yaabtaan inala wadaagtaan runtii wax kale meeshani maahane waa arrin khatara oo runtii badaheena lagu arkay xilliyada habeenkii ah markaa arkaysaan wakhaaradeennii waxaa afar geeska dhex jira ee arkaysaan ee ka iftiimaya meesha dhaxana waxa weeye waa calaamadan meeshan saaran oo sida u muuqata oo lagu qiyaasayo dherer ahaan 250 kiiloomitir waxayna lagu sheegay inay tahay waxa la yiraahdo milky glow iftiin macnaha sidii aad u iftiimaya in badan oo ka tirsan mataqaanaa badmareenaduna waxay in muddo xilliyada habeenkii ku arki jireen badda wax iftiimaya oo ishaadu meel dheer ay ka qabanayso dhinac kasta ah sidoo kale waxaa lagu sheegaa waxayna yihiin waa milky sea haddaba marka saynisyahanadu waxay sheegeen ayaguna inaysan arrintani waxba kala socon waxa ay yihiin laakiin sawirkani arkaysaan waxaa soo bandhigay oo aad soo qaaday milky glow sea sida u muuqata satellite waxayna sheegeen saynisyahanadu inay rajo ka bixinayaan inay wax badan ka bartaan dhacdadan runtii sidoo kale waxay ayagana sii sheegayaan inay waxaanay ku sheegeen bacteria noocyada bacteria ka mid ah oo u yaqaanaan bioluminescent taasoo runtii iftiimisa ama waxyaabo parasite dhasha taasoo ka dhigta wax dhasha iftiin leh haddaba hadday bacteria tahay iyo hadday wax kala tahay iyo hadday mataqaanaa tahay waxa la yiraahdo waxyaabaha qashinka 20 sano badaheennaba waxay iska noqdeen dee meel maaragtay iska bahalgaleena laga yaabay inuu maaragtay waxaan xiriir xataa ula leeyahay xagga mataqaanaa sunta khatarta ee dilaaga ay dadku mataqaanaa ay saxdadan ka aqoon la yiraahdo radioactive-ka sumahaas iyo wax la mida iyo toxiga iyo dhammaan iyo qashinka badaheena lagu qubay ee muddana lagu qubay ilaa haddana laga yaabay in lagu qubayo ayagana waxyaabo maaragtay noocaas ka dhashay inay yihiin laga yaabay haddaba marka su-aasha waxay tahay arrinta noocaana khatar noocee ah ayay dadkeenu ay u keeni kartaa qaab nooceesa arrintani gacan looga geysan karaa in arrintani laga maaragtay lasoo saaro waxa ay yihiin iyo waxa maaragtay in haddii iyo environmentally hadday dhibaato ku tahay iyo hadday mataqaanaa wax khatara oo runtii bulshada iyada mustaqbalka iyo jiilkeena khatar ku keeni karta ay wax maaragtay ku dhigaysa ayaduna ay tahay runtii arrimaha noocan waxaa jeclaan lahaa soomaalidu inay u foogjignato oo runtii juhdi waqti la geliyo halka maaragtay dadku ayagu is qabsan lahaayeen oo maanta dhan mataqaanaa lagu qaxweyn lahaa hebel iyo heblo waxaan jeclaan lahaa in dadku ay runtii gartaan barwaaqada ilaahay siiyo waxaa arkaysaan dalkaasi quruxda badan meesha uu ku yaallo bal eeg waxa maro waa laba badda bal fiiri caalamkana baa u dhowdahay waxaa tahay hab xarun baa tahay waxaa qaaradda dhinacaas ka haysa dhufur baddiyaa haysata intaa la eg iyo dalka ugu xeebta dheeraad tahay waxaad tahay dal isku xiri kara waxaana soo saarka qaaradaha asia ee dhan ee wax soo saara ee maanta caalamku mataqaanaa ganacsiga ku hogaaminayo waxaa awoodaa inaad xarunta ganacsiga ee bariga africa ugu dhigto africa oo dhan halkaas loogu gudbiyo waxaad awoodaa in khayraadka baddan ilaahay ku siiyey ee tirada badan inaad caalamka ka iibiso waxaad awoodaa badahaas kalluunka laga helo ee nacfi iyo wax walba leh in ayaguna dalkaagu ay noqon karaan waxaa la socotaan jasiiradaha yaryar ee arkaysa meelas ka muuqda ee Mauritius iyo Victoria iyo waxaas lagu leeyahay ishaag mataqaanaa madagaskar dhinacyada ah oo dhan waxaa ku yaala kalluumada ugu waaweynaa caalamka ee soo saari jiray tunada oo meeshay ku yaalaan haddii halkaan maanta 5 urshid laga dhiso qaaradda iyada tunada maxaa umaynaysaa oo Yurub iyo Carab iyo meel walba adduunka loo iibgeeyo fiiri marka jaanisada Soomaalida ay haysato waxa weeye jaanis aad u qaali ah maanta hadda badaheena waxaa arkaysaan busumihii iyo qashinkii oo lagu aasiyaa marka xataa xeebiyaha khatar ku jira in lagu dabaasho dadkiina waa iyagii isku mashquulsan waxay isku dhigiin marka waxaan leeyahay kor inta loo maaragtay caqliga kor loo qaado waqtiga iyo maanta aayaha iyo mustaqbalka jiilkaaga dambe ka fakar waxaad mataqaanaa dadkaaga ugu tegayso ka fakar mustaqbalkaaga ka fakar waxba kuu sheegi maayo mataqaanaa fadhigu dirir iyo heblo iyo hebel iyo waqti maanta dhan waxaa ku dhumiso sheeko aan macno ku fadhin iyo
dantaada ka shaqeey, taada dhis, dadka alla nooshahay integrate ku sameey, wax ka baro, dalkaagana wax u qabo, wax dhis. Waxaan aaminsanahay haddii caqliga uu saliim noo yahay oo dadkuna ay dad wax fahmi karo saaxiib la yihiin in dalkani uu noqon karo dalalka ugu qanisan caalamka. laakiin wuxuu ku noqon karin sida hadda waqti u dhow dadkiisu weli waxa weeye jaahilnimadii baa weli ku fogaatay, caqligooduna waa fogaaday oo waxay maaragtay door bideen inay dalalka shisheeye oo dariskaha inay maalgashtaan oo caqligoodu ay geliyaan oo dantoodii halkaa ay gasho, dalkoodina ay halkasaa uu ku gubanayo oo ayaguna ay ku daawanayaan. marka waxaan qabaa arrintan khatarta ah waxaa weeye jiilka mustaqbalkii xataa dhibaato u keeni kartaa, waa in laga fikiro isaan qabo. haddee waxaan idin leeyahay sida nabadgelyo.